السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وعد عز مصطفى ياسين waxaan soo jeedin doonaa maanta barnaamij e-commerce platform barnaamijkaas oo ka saacidaya dadku inay ka ganacsan karaan ama ka adeegan karaan suuqaqa online-ka oo gebi ahaanba aad ugu yar geeyigeena Soomaaliyeed marka loo eego in qofku isagoo gurigiisa jooga ama goobtiisa shaqo jooga ama ka yara fog meesha uu ka iibsanayo wax uu si fudud wax uga heli karo inuu ka iibsado meherad isagoo u dhigmay inuu dhex joogo kaasoo wuxuu soo dalbado iyo inuu iska jeegareeyo uu ageego awoodi karaya hadhow toolana ay mas'uuliyadda qaadi karto shirkadu in ay u qaado alaabtaas ugu geysa halkay joogto isagoo ku qanacsan adeega timeka uu dalbaday iyo shayga uu dalbaday oo isla sidiisiya oo aan waxba iska bedeli karin salaajigeed waxaan isla eegi doonaa application-kayga e-commerce platform-ka aan isla eegno application-kayga e-commerce-gu waa kan marka koobaad wuxuu u qaybsami doonaa laba qaybood oo qaybta uu isticmaalayo qofka user-ka ee isticmaalaya application-kan iyo qofka admin-ka uu isticmaali karayo qofka user-ka marka uu soo galo application-ka wuxuu marka koobaad samayn doonaa inuu samaysto account-kaas oo ka saacidayo qofka inuu yeesho account u gaar ah xogtiisana lagu kaydin doono hadhow toolana uu lacagta ku bixin doono marka imika waxaan joognaa qaybta user-ku isticmaalo oo u ekaan doonta qaybtii koobaad ee barnaamijka ka soo muuqanayay oo kan inta kadib halkan waxa uga muuqan doona user-ku inuu products-kii aynu haynay ama alaabihii aynu haynay uu qofku si fudud uga arki karayo isagoo qof waxa uu arkana si dalban karaya kaartigiisana geysan karaya hadii aynu isla eegno qofku tusaale ahaan waxa uu damcay inuu iibsado application product-kan earphone inuu iibsado ama headphones waxa loo yaqaano waxa uu halkan ka heli karaya headphones-kii oo noocyada yaala haday tahay iyadoo midab kala haday tahay iyadoo siiskooda xadigooda iyagoo si faahfaahsan loo sharaxayo halkan qofku waxa uu saacidi karaya inuu qofku haduu application-kaaga ku qanco uu sameyn karo review oo stars ku siin karo ama uu committee ka bixin karo waxyaabihii aad haysay inuu ku qancay in kale inta kadib qofku waxa uu awoodi karaya inuu si fudud oo aqoon badan uga baahnayn uu dalban karo alaabta uu u baahday inuu iibsado oo tusaale ahaan oo kale qofkan wuxuu doonayaa inuu iibsado ama earphone iibsado wuxuu oranayaa add to cart wuxuu sameeyay kaartigiisa lagu dari doonaa imka saad arkaysan waxa lagu daray kaartigayga oo layga siinayo $60 baa layga siiyay totalkiina $60 baa laygu sameeyay qofkaasi alaabta uu kaartiga gashtay waxa uu iibsan karayaa si fudud maadaama hadda uu yahay member ka tirsan ama qof customer oo ka diiwaan gashan website-kan e-commerce platform-ka wuxuu qofku sameyn karayaa inuu si fudud u iibsado alaabta isagoo taabanaya proceed checkout tani waxay ka saacidaysaa qofka inuu markuu proceed checkout sameeyo order-ka loo sameeyo qofku wuxuu awoodi karayaa inuu lacagta ku bixiyo hab online ahaan isagoo dunida daafaheeda kala jooga isagoo adeegsan karaya card kasta uu haysto ama application kasta wax lagu bixin karayo qofku wuxuu adeegsanayaa imika waxaan adeegsan doonaa Mastercard qofku wuxuu awoodayaa inuu wixii uu iibsanayay si fudud uu email-ki lagala xiriirayay iyo contact-kiisa u galiyo number-kiisa waxa sidoo kale xusid mudan inuu qofku ka heli karayo deegaanada uu ka mid yihiin haday tahay Soomaaliya haday tahay Kenya haday tahay wadamada la jaarka wuxuu qofku si fudud u iibsan karaya isagoo wadamadan jaarkana jooga marka laga yimaado inta magaalooyinka iyo xaafadaha kala duwan ee magaalada qofku wuxuu si fudud u bixin karaya lacagtiisa isagoo isticmaalaya habkan payment-ga ayuu sameyn karaya inta kadib intaan ka gudbin halka waxaan idin tusi doonaa code-ka aan ku sameynay code-ka aan ku adeegsanay inaan ku sameeyno application-keenan inta noo muuqatay baan insha Allah imika isku dayi doonaa imika page-ka koobaad aan tusay waxa uu ka kooban yahay waa qaybtii koobaad ee saacidaysay qofku inuu arko products arko meesha yaala ama inuu alaabaadka meesha yaala arko waxa ka saacidaya code-kan oo inta badi lagu dhisay React oo framework-iska aad ka lagu xiiseeyo waqti xaadirkan imika la joogo aadna casri ah waxa kale la socdo taylooyin CSS caadiga ahayd waxa kale inta dheer framework-is ka qayb qaatay qurxinta application-kan oo latest version ama version-adii u dambeeyay aadna looga jecel yahay dunida marka imika hadeen isla eegno code-ku waa kan qaybo badan ayuu ka koobay iyadoo ay functionality badan isticmaalayo code-kani
aan ku noqono marka inta laga yimaado waxaanu sidoo kale kamid ah application-keena qaybta loo yaqaano admin dashboard-kii baa kamid ah oo qofka maamulka shirkadii wuxuu isagu leeyahay qayb ka duwan qaybta uu isticmaalayo userku oo ah inuu maamulo dhammaan wixii muxuu ahaa ka jiray macluumaad ama wixii data qofkaasi soo galiyay meesha lagu maamulo application-kan ah waana meesha laga maamuli karayo application-kan si fududna qofku uu ogaan karo qofka company-ga haysta ama maamulka ama shaqaaluhu ay u ogaan karaan wixii dhaqdhaqaaq u dambeeyay dhacay halkan hadaynu isla eegno waa qaybta order-iska qaybta order-ku waxa ka saacidaysa mulkiilaha ama shirkadda adeegsanaysa application-kani inay si fudud u ogaan karaan dhaqdhaqaaqa u dambeeyay in wax la dalbado ama in wax la iibsado iyo contacts-kii lagala xiriiri lahaa qofka wax iibsaday haddaynu marka isla eegno waxa kamid ah laba qaybood oo kala noqonaya pending iyo qaybta loo yaqaan success-ka qaybta pending-ka loo yaqaan waxa weeye in user ama customer uu qaatay alaab dalbaday order-keeda laakiin aan weli lacagta bixin alaabtaas oo doonaysa in qofkaasi uu lacagtii bixiyo una dhigantay inuu qof alaab soo iibsado intuu galo store-kaaga alaab la soo baxo miiskaaga soo saarto doonayaan inuu lacagta bixiyo qaybta success-ku waxay u dhigantaa qof intuu store-kaaga galay alaab soo qaatay dadna lacagtii bixiyay saana hawshiisa ku dhamaatay waayo waxa loo adeegsanayaa success iyo waliba in delivery loo sameeyo alaabta ama uu qofkii qaatay ama shirkadu u qaaday haddii loo baahdo hadhow toole in qofkii alaabta iibsaday macluumaad ku saabsan waxa si fudud looga heli karayaa deegaanku ku noolaa alaabtu qaatay barayskeeda muxuu ahaa qiimaheeda quantity-ga uu qaatay iyo halka lagala xidhiidhi karayo intaa kadib waxaan isla eegi doonaa koodhka inoo saacidaya in aynu samayno qofku uu orderkiisa arki karo oo qofka meesha uu arki karo orderkiisa marka laga yimaado qofku wax iibsaday oo isagu goonidii u arki karo orderku samaystay kan waa koodhka inaga saacidaya iyadoo la adeegsanayo framework-iskii u dambeeyay oo kala ah hadday noqoto React lala adeegsanayo Tailwind CSS iyo frameworks kale oo ka saacidaya in ay noqdo wax si fudud loo fahmi karayo qofkana aan aqoon badan uga baahnayn kana ilaalin karayo company-gaasi inuu ku dawaqo isticmaalka application-kan koodhku waa kan oo qaybo badan ayuu ka kooban yahay hadday noqoto products-kii lasoo akhrinayay oo laga keenay database-ka iyo qaybtii uu arkay qofka isticmaalaya application-kan iyo in uu marna pending noqdo marna success noqdo waxa kaloo iyadoo meesha aan ka maqnayn in qofku isagoo adeegsanaya application-kan uu company-gu samayn karayo category jirana update garayn karayo oo qaybtan category-yadu waxay ka saacidaysaa in alaabta aad iibinaysaa ay u qaybsanaato category waxay ganacsiga u fududeysaa inuu qofku si fiican u fahmo halka dakhligu ka soo galayo waxa uu iibinayo waxan uu iibinayo cid ay qusayso oo qofku hadduu intaas oo qodoba uu company-giisa si uu horumariyo doonayo inuu adeegsado wuxuu isticmaali karaa inuu ogaado cidda wax ka iibinayo wuxuu ogaan karaa inuu ogaado alaabta uu iibinayo iyo cidda ay qusayso iyadoo loo qaybin doono category kala gaar ah alaab kastana gooni loo iibin doono imika laba qaybood ayay si guud u eegi doonaa imika laba qaybood baan u qaybiyo electronics-ka oo wax kasta oo electronic haddii mobile noqoto ama haddii device noqoto oo company-gaasi iibinaya category gooniya loo samayn doono si hadhow tole si fudud loogu access gareyn karo waxa kaloo halkan ku jira car accessories wax loo yaqaano ama adeega gaadhiga oo hadday bir noqoto spare parts hadday noqoto waxa si fudud iyadana category gooniya ay u hoos imanaysa si loo helo si fudud loogu helo waxa uu company-gu samayn karaya in uu category cusub diiwaangeliyo isagoo adeegsanaya waxa uu isagoo application-kan isticmaalay wuxuu diiwaan gelin karaa categories iyadoo magacii uu gelinayo name-ku gelinayo description uu sameeyo uu qeexayo waxyaabaha ay category-gani ka koobantay waxa intaa kadib halkan inoo raaca in uu company-gu sameyn karayo update oo category jira uu update gareyn karayo ama uu sawir ka bedeli karayo ama uu ka bedeli karayo magacii loo yaqaan ama uu wax ku dari karayo waxa sidoo kale meesha ku jirta inuu sameyn karayo remove oo inuu sameyn karayo remove isagoo adeegsanaya recycle bin uu gelin karayo hadhow toolana recycle bin-ka laga soo celin karayo oo si fudud loo soo access gareyn karayo intaa kadib waxa halkan aynu isla eegi doonaa products-ka iyaguna inoo diiwaan gashan oo iyagu products-ka ka soo muuqanaya ama alaabta aynu iibin doono oo ah halka lagu create gareynayo ama halka uu ku diyaarinayo maamulku si uu dadka u tuso
halkan waxaan isla eegi doonaa productska inoo yaala oo listigan ku jira oo iyagana sidaas si lamid la sameyn karayo update la sameyn karayo remove la sameyn karayo si fududna loo tixraaci karayo oo tusaalahan hadii uu qofku userka u baahdo productsku ciid ka badan karayaan oo products badan buu kala iibin karaya haduu baahan yahay inuu helo wuxuu si fudud ugu search gareyn karaya haday noqoto magac haday noqoto price haday noqoto oo tusaalahan waxaan isla eegi doonaa waxaan isla eegi doonaa shayga $20 oo halka sare soo maraya ama shayga $20 ama la siinayo waxaan isla eegi doonaa iyadoo magac lagu search gareynayo oo qofku isticmaalayo magac uu tusaalahan oranayo waxaan baaraya qofku iPhone 15 Pro uu baaraya qofku iPhone 15 Pro uu baadhay waxa uu toos u heli karayo xogtan oo lagu sameyn karayo filtering ama in loo kala reebo way si fudud u nasaalayso qofku inuu si fudud u isticmaali karo application-kan waxa sidoo kale meesha dheer in la isticmaali karayo customerskii ama dadkii meesha isticmaalayay oo si fudud loo arki karayo qof kasta meesha isticmaalaya emailkiisa numberkiisa iyo role-kiisa uu haystay waxa kale oo inta dheer inuu qofku sameeysan karayo calendar oo calendarkan oo ka saacidaya in qofku ama company-gu uu sameeysto time gaar meeting uu yeelan karo bandhig uu yeelan karayo xog uu ku urursan karayo oo xogtiisana halkan gelin karayo halkan uu gelin karayo hadii uu waraysi maalinta leey safe ama dhacdo soo marto uu sameeysan karayo iyadoo maalin la noqon karta day la noqon karta week la noqon karta iyo bil la noqon karta inta kadib waxa sidoo kale raacaya inuu qofku sameyn karayo editor ama uu meel wax ku kaydsado sida word ahaan oo kale oo uu adeegsanayo application aad u casri ah oo hadii kamid yihiin qurxinta farta hadii yihiin paragraphinka hadii yihiin image meesha la soo galiyo hadii yihiin in code loo bedelo meesha oo loo qoro as code ahaan loo qoro waxa kale iyadana meesha ku jirta line chartigii qofku adeegsanayay si uu qofku alaabtu u iibiyo reportski ka soo dhaxbaxay meesha oo si fudud iyadana loo adeegsanayo iyadoo la isticmaalo line chart area bar la adeegsanayo iyo qaar kale oo badan hadda waxaan isla eegi doonaa application-kan laba qaybood baan u qaybnaa qaybtii front end-ga marka dhameeyna waxaan isla eegi doonaa qaybtii back end-ga qaybtii back end-gu waxay ku dhisantahay Node.js Express iyo Postgres oo la adeegsanayo iyadoo la adeegsanayo Prisma si Postgres-tii data lagu kaydiyo inta kadib waxaan isla eegi doonaa muxuu back end-gan API-gan qaban karaya API-gan wuxuu qaban karayaa functionality kala duwan haday tii dhamaan waxyaabaha ay soo sheegnay product la create gareeyo in user la create gareeyo in application-ka la isticmaalo waxa uu saaciday API-ga back end-ga kuna dhisan Node.js waxa uu API-gan soo kala ilaalin karaya xogta ama daatada database-ka ku jirta waayo waxa la isticmaali doona waxa la kaydin waxa la adeegsan doona si loo ilaaliyo xogta iyadoo bcrypt la sameeyo passwordska qofka uu ku soo galay account-kiisa waxa uu heli doona iyadoo bcryptia qofna aanu awoodin inuu passwordka arko loona bedelayo hab haashahana si aan loo akhriyo karin qof binaadan u akhriyo karin waxa sidoo kale meesha ku jirta in qofku uu adeegsanayo security waxa loo yaqaan ama GWT waxa loo yaqaan oo u saacidaysa in qof kasta ay role gaar ah siiso qofna uu ku koobnaado inuu user ahaado qofna uu ku koobnaado inuu moderator ahaado qofna uu ku koobnaado inuu admin ahaado oo ah traffic kala hagaya xogta soo galaysa application-ka qaybna joojinaysa qaybna ku ogolaanaysa si looga hortago in qofku helo data kale ama xog kale uu qof kale leeyahay ama aan lagu talagelin inuu arko sidoo kale waxaan adeegsanaa Postgres-ka oo halka lagu kaydin doono xogteena oo database-keena uu noqon doono Postgres halkan waxa kaaga muuqda in millions lines of code la qoray si loo adeegsado API la isku haleyn karo ama aad la isugu haleyn karo qof kastaana isticmaali karo oo application-kan ku dhisay hadhow tole loo adeegsan karo wax kasta oo loo baahan yahay inta kadib hadii si guud u eegna application-ku waa application weyn oo e-commerce waxyaabo badan ama frameworks badan oo loo adeegsaday hadii kamid yihiin React.js, JavaScript, TypeScript, Tailwind CSS sidoo kale xog kaydin hadii loo adeegsanayo Cloudinary iyo frameworks kale aad u fara badan xagga back end-ga Node.js Express Prisma loo adeegsaday inta kadib application-kaygu waa application weyn oo e-commerce si fududna loo fahmi karayo. Wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.